عشرين كواد system security وعن قاعد دونا حيركا system security design كا حيركاني وكو أساس كوا لسيتا security system قاسي وحنوا كلا ميد أدي واتسي خاص أخذ سنة أما ميد company وسمينا حيركا system security design كو وكدويهين كو على مرة ما كلا السنجرينيو نوعية كلا software هذا تصالحان هذه الدسيسو دسمة كوبان دماغيو يهدأ دسيسو كوي عادي ولا بد دسمة وسوا كوا design هان كلا دوان ساسو كلام كلا design كراينيو security system وحلا مرة حير كدوان كولا مرة نوعية كلا system هذا انتنا نقدر جنا عشر كنا مانتا أين كوا رئيسينو صوته ميم كوي هاي عشر كني إن البراتو حيرك security system design وهي أتخاجع حاول نساين القيمة كتو خطرها سيبركا maadaama weerarada cyberku ay marba markasi dambeeya noqonayaan kuwa ka adag kuwii hore waxa laga maarmaan ah inaad taqaano oo aad haysato faham ku saabsan system security design-ka iyo xeer kasta ay tahay inaad qabato qodobka labaad ee isna muhiim u yahay casharkani waa inaad fahanto oo aad yareyn karto khasaaraha uu keeni karo weerarada cyber ahi adigoo raacaya xeerka system security design sidoo kale aqoon u leh saddexdii xeer ee aynu hore u samarnay ee kala ahaa confidentiality integrity iyo availability okay haddaba waxay yihiin xeerarkani heerka wada lagu magacaaba least privilege waxa uu inoo sheegayaa in security system-kaasi uu qof kasta oo isticmaalaya uu ogolaado inta ugu hooseysa ee laga maarmaanka tahay inuu qofkaas ku shaqeeyo tusaale ahaan bank ayaa ku dhahay system security noo samee haddaba dadka bankiga iska shaqeeya isku wada level maahan waa inaad u dhisan garaysaa in qof kasta oo isticmaalo keliya inta ugu baahan yahay waa inaad ka dhigi kartaa maamulaha bankigaasi inuu isticmaali karo dhammaan qaybaha kala duwan ee systemkaasi halka shaqaalaha kale uu keliya isticmaali karo qaybta khusaysa uun heerka labaad waxa lagu magacaabaa defense in depth heerkan wuxuu inoo sheegayaa in security system kasta ay aad muhiim ugu tahay inuu yeesho layers ama lakabo kala sarreeya kuwaasoo ilaalinaya xogta ku jirta systemkaasi lakab kasta waa inuu noqdaa mid ka adag ka sarreeya difaacna u ah tusaale ahaan waa inuu systemkaasi yeeshaa marka ugu horeysa in keliya la soo daayo dadka ka shaqeeya xafiiskaasi oo la xadido inta qof ee si toos ah ama si physical ah u access gareyn kara systemkaasi kadib marka uu qof access u leeyahay xafiiska soo galo waa in la sii weydiiyo passwords kala dambeeya sida marka koowaad in lagu weydiiyo username iyo password kadibna haddii qofkaas rabo inuu sii galo systemkaasi waxa la weydiin karaa verifications sida number ama email haddii uu rabo inuu sii socdana waxa la weydiin karaa verifications dheeraad ah ilaa uu halka ugu dambeeya ama qaybaha ugu muhiimsan gaadho halkaasina la dhigo verificationska ugu adag sida isha oo kale ama wejiga ama card iyo waxyaabahaasi oo kale xeerka saddexaad ee system security design-ku waa security by design marar badan waxaa dhacda in software developersku aysan muhiimad siin security-ga software-ka ay dhisayaan ama project-ka ay dhisayaan ayna u maleeyaan inay hadhow markay project-ka dhammeeyaan si fudud looga dabageyn karo security-ga balse waa fikir qaldan dhabarjabna ku noqon kara cidda software-kaas isticmaalaysa ammaanka software-ku waa asaaska ugu horeeya ay tahay in laga bilaabo software-ka qaybaha kala duwan ee software-kaasina waa in base looga dhigaa security system-kaasi heerkan wuxuu muhiim u yahay inuu xilli hore sii ogaan karo khataraha ku iman kara systemkaasi kana taxadiri karo sidoo kale haddii laga tago dhisidda security systemka waxaa dhici karta in hadhow haddii arrin amni imaado in lacaga badan uu ku kaco hagaajinta software-kaasi heerka afaraad ee security system design-ku waa segregation of duties heerkan wuxuu inoo sheegayaa in awoodaha systemkaas cid gaari gacanta ku wada hayn taa maxaa looga jeedaa tusaale ahaan qaybta IT-ga company-gu waa inaysan keliya ku koobnaan hal qayb oo ah tiimkaas ka shaqeynaya arrimaha IT-ga ee company-gaasi balse waa in loo kala qaybiyo teams kaasi oo qaybi qorto codiska qayb kala samayso review and testing-ka qayb kala samayso deploying-ka ama soo saarista software-kaasi tani waxay shirkadda ka caawinaysaa in ay awoodii loo kala qaybiyo koox kasta iskeedna aysan u samayn karin shaqo malicious ah ama khaldan haddii tiimka qoraya codisku ay isku dayaan inay systemkaasi kusoo daraan backdoors ay leeyihiin waxaa soo qaban karaa qaybta testing-ka shirkadaha waaweynna waxay samayn karaan in aad loo badiyo qaybaha si loo sugo ammaanka software-kaas isticmaalayso shirkaddu oo develop garaynayso heerka shanaad ee system security design-ku waa fail safe default oo looga jeedo in systemku default ahaan yacni default waa sida caadiga ah ee marka uu yimaado shay tusaale ahaan luqadda default-ga ah telefonka waa English waad bedeli kartaa laakiin marka ugu horeysa waxaa dooran English saasoo kale fail safe default wuxuu inoo sheegayaa in sida caadiga ah systemku secure ahaado oo accessku iska furnaan oo u furmo keliya marka password la geliyo waxaana heerkan inaga caawinayaa in haddii khatar amni soo wajahdo systemka inuu default ahaan yahay mid amni ah oo xidhan shantaas xeer ayaa ugu waaweyn xeerka ay muhiimka tahay la maro marka la dhisay garanayo system security
xeerarkan inaad fahanto maskaxda ku haysaay waxay ka qayb qaadan kartaa horumarinta xirfadaada cyber security-ga waana mid ka mid ah waxyaabaha basicska ah ee laga yaabo in dad badan oo professionals ay markii hore ka soo boodeen balse dib ka qabsatay kuna khasbanaadeen inay dib ugu noqdaan fahamka security system design-ka la wadaag muuqaalkan asxaabtada jecel cyber security-ga mahadsanid